saaka waxaynu soo booqonnay suuqii weynaa ee Wahen oo dhawaan farta laga qaaday kuwan aad arkaysaan waa dhismayaashii cusbaa ee suuqa Wahen oo imika muddo laga joogo dhowr bilood ay soo galeen ganacsatadu halkaas ku ganacsada wad arkaysaan quruxdiisa iyo qaabka uu sameeyay yahay suuqu inuu yeeshay wadooyin waaweyn oo dhex mari karo isla markaasina marka ay baabuurtu ku rogayaan alaabta suuqa ay si habsamali ah oo nafis ay u soo gali karaan ugu horeyn muuqaalka la ku dhufta khiyaarta qiimaha badan soo dad badan muuqaalku u gaadho wad arkaysaa baabuurka dhex socda suuqu waxa uu noqday meelaha ugu quruxda badan ee lagu shaqaysto magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantiin khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan aad baad u salaamantihiin meel kasta oo digala socotaan subax wanaagsan baan idin leeyahay xilligan aan muuqaalka soo duubaya waa subax hore waa toddobadii subaxnimo weeye waxaan saaka soo booqday suuqii Wahen oo ay ka socoto shaqadii maalinlaha ahayd ee caadiga ahayd wad arkaysaan dadku inay ku ganacsanayaan bartan baan muuqaalkeena aan ka bilaabi doonaa haddii Rabbi ogolaado wad arkaysaan suuqu qaabka uu sameeysan yahay muuqaale hore iyo muuqaale kale oo aad daawateenba waad aragteen in suuqu yahay dhismayaal aad iyo aad u qurux badan isla markaasina qaarkood ay yihiin ilaa 2 dabaq qaarkood ay 3 dabaq yihiin kolba qaabkii ay ka dhigteen ganacsatadu halkan aynu marayna hadda waxa weeye waa ganacsatadii weelka iibin jirtay ama la oran jiray maacuunta qolooyinkan weelka iibiyaan baaldiyada weelka waxyaabahaas iibiyaan ganacsiyo kala duwan ayaa suuqan Wahen laga furay waxa iga xasuusina inaan wali qolal fara badan aan la soo galin oo ay banaan yihiin sadarkaysan baaba xiran walow ay subax hore tahay laakiin qaarkood xilliyada kale markaan soo maro duhurkii ama casarkii waxa xidhan albaabo badan oo wali la soo galin ama aan laga bilaabin shaqadii qaabkaas ayuu sameeysan yahay suuqu balsaaka waxaynu kormeeraynaa oo hore ugu socon doonaa qaybaha bloogyada ama dhismayaasha kala duwan ee suuqa Wahen ee loo sameeyay bal meheraduhu ay sida yihiin way hormari doonaa kamaradana waanu ku qaban doonaa haddii la yiraahdo halkana waxa weeye waa supermarket weeye kamida supermarketyada laga furay suuqii Wahen suuqa Wahen dhismayaashiisu isla halka kalar buu leeyahay albaabadana waa cadaanka qaab isku qaab loo dhisay walow shirkado yaro kala duwan ay kala qaateen laakiin inta badan waxa la iswaafajiyay dhisaankii iyo nashqadii guud suuqa Wahen qaybtan jiingada ee dhanka bidix naga qabanaysa ee dumarku marayaan waa qaybtii dawladda hoose ay maamul jirtay ama iska lahayd ee suuqa bartamihiisa ku taalay oo iyadu ilaa hadda socota dhismahanna waxa uu ka mid yahay dhismayaasha wadada ku sii jeeda kamid ahaa dhismayaashii ku gubtay suuqa Wahen isna shaqa ka socoto oo wali waa la dhisaya wadadii halbowlahayd ee weyneed ayaa halkan aynu ka arki doonaa wata halka baabuurtu ay ka marayaan oo wadadiiba halka ay naga xigta laakiin ma gali suuqa hore ma tagayno Wahen baynu ku ekaan doonaa waa subax hore oo dadiyowga meheradaha lihi ama shaqaalaha meheradaha lihi ay furayaan meheradihii qaarkood way xaadayaan sad arkaysaan oo waa la nadiifinayaa maadaama ay dadkeenu yihiin dad nadaafada aad iyo aad 100% ugu fiican subax hore shaqooyinka qabana waxa kamid ah inaynu inagu isnadiifino aynu cadayno meedhano isdiyaarino isdhalaalino kadib intaana aynu markaan ku xigsino ama guriyaha ama meheradaha kolba halka aynu joogno aynu nadaafadii ka bilowno oo hortooda xaadna xashiishka iska ururino meheradaha la qurxiyo la qaabeeyo marka ruuxaantii dhaqankaas aad iyo aad baan ugu fiicannahay waa subax hore sanadii sheegay meherado badan oo shaqeynaya ayaa xiran markaas sababta aan subaxan hore muuqaalka u soo duubay waxa weeye in aad bal aragtaan haddii Rabbi ogolaado qaabka dhisaanka suuqa uu sameeysan yahay waayo imika markay gaadho 9 subaxnimo ama 10 subaxnimo baabuur baa la dhigayaa qaarba parking ka dhigaya kaariyoonayaal baa soo gelaya nidaamka iyo suuqu sida waafiga u yahay hadda waa arkayno suuqu ciriiri buu noqonayaa markaas waa sababta aynu subax hore u duubana muuqaalkan waxa ku dhex yaala laambadihii leerka habeenkii suuqu waa iftiin habeenna wayna soo duubi doonaa bilqaabka uu habeenkii yahay bacda maghrib wixii ka dambeeya waxyaabaha dadweynuhu ay suuqan aad iyo aad ay ugu bogaadiyeen waxa kamid ah wadooyinkan ay isku dhaafayaan boqolaal qof ay isku dhaafayaan oo aanu qofna qof jiidahayn inaad xasuustay in kala mooyi
laakiin haddii aad xasuusato xilliyadii hore ee suuqani aanu sidan u dhisnayn cidhiidhi buu ahaa dadka kaariyoonayaasha meheradaha bagaashlayda wuxuu isla cadibnaayeen dhisma dhaafi karahayn dadku ay isjiidhayeen baabuurna inuu soo galo habeen xalay haya tegay taa iskaba ilow oo baabuurtu aad bay ugu adkayd markay wax ku rogayaan waxay soo geli jireen saacadaha dambe habeenkii marka laga qaado kaariyoonayaasha iyo waxaa laga baxlay halkanna waa qayb kale oo ka mid ah suuqii waaheen ciyaalka bartan fadhiya waa oromo weeye oromadu subaxa hore iyo amxaaro imika magaalada soo gashay intan hargeyso aan ka warhayo amxaaro badan baa soo gashay dadka amxaarada la yidhaahdo waxa weeye suuqay ka shaqaystaan xashiishkaasay gurtaan baalashkay baalasheeyaan iminka waxyaabaha Itoobiyaanku ay la wareegi doonaan magaalada Hargeysa aan isha ku haya waxa ka mid ah waxyaabahan la yiraahdo snacks-ka la yiraahdo sida sambuusaha quraaca waxyaabaha si suuqa la dhexmariga waana waxyaabo qalada in dad ajaanib ay cunto ku sameeyaan anigu waxaan aad iyo aad ula yaabaa dadka ka iibsada Itoobiyaanka cuntooyinka ka iibsada waayo ma naqaano meel ay ku soo sameeyaan waxay ku soo darayaan lama yaqaano nadaafadooda lama yaqaano dana baaldiyo waxay la yaacayaan sambuusa iyo quraac ay ka buuxaan marka waxyaabaha u baahan dadka in laga wacyigeliyo haddii daawade aad ka mid tahay dadka Hargeysa jooga ama ehelkiisa jooga ama saxaabtiisu ka waani inaanay Itoobiyaanka waxba aanay ka iibsan ama quraac ha noqoto ama alaab kale ha noqoto waxa ugu yaraa inuu ka baahrayn karna wax weeye waa baalashkan waa lacag inaga baxayso oo in lagu dhiiri galiyo dad muwaadiniinta qaarkood inay baalashka iyo wax walba iyo xashiishkaba ay ka shaqaystaan oo hadda Oromada iyo Itoobiyaanku ay ka shaqeeyaan waayahay muuqaalkeena ayaan hore ku sii socon doonaa halkanna waad arkaysaan meherado kale oo shaqeynaya laakiin hadda aan wali la furin suuqa waxaa la furaa inta badan 8 subaxnimo ayaa la furaa blockiska ama dhismayaasha waa noocan qalcaduhu qayba meel sibay u dhisan tahay oo dhan afarta dhanba waxaa ka mara wadooyin baa ka maraya si xagga hore iyo xagga dambe bidix iyo midigba dadku ay uga wareegaan oo ay u dhaafaan wadooyinkuna si fiican bay waafi u yihiin oo waa la isku dhaafi karayaa inta badan suuqii hadda waxaa soo galay ganacsiyo yaryar oo fara badan oo cusub ayaa qaarkood ay la jaan qaadeen dhismayaashan cusub oo hadda lagu furay kuwaasoo ay fursad u noqotay inay suuqa ay ka helaan qolal ay ku shaqaystaan sida la sheegay qolalkani aad bay qaali u yihiin qaarkood markii la dhisayay dadka ku jira lacagtii bay sii qadimeen oo waa laga sii qadimayba lacagtii oo dhowr sano ayaa laga sii qadimay waxyaabaha dadkeenu ay yaqaanaan marka dhismo suuqa laga dhisayo dadka ayaa lacagta laga guraya doonaya inay qolalkaasi galaan ama ay meel ka mid ah ay kaga shaqaystaan dhismaha qofka dhismaha lena wuxuu oranayaa 2 sano ama 3 sano sii bixi intaas dhismahaasina waa asaasan ku dhisan marka waxyaabaha iskaashiga keena weeye dadku ay horumarka dadka reer jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedu ay ku gaareen horumarka aadka u ballaaran qaybtana waa qayb kale oo xigta dhankii Xarahadhuudha ay qaybtani xigta Xarahadhuudha wad arkaysan masaajidkaas ayay u dhowdahay oo xaggaas ayaan u yar dhaqaaqi doonaa insha Allah xaggana waxaan u leexan doonaa dhankii inshaarada iyo telesom bay u leexan doonaa dhismayaasha qaarkood baa wali ku socda dhismihiisa darkaysan dhismaha xagga midig hadda inaga haya waxa weeye lama dhameystirin meeshu meel ballaaran bay ahayd suuqaadu ballaaran bay ahayd maaha meel sanad iyo laba iyo wax lagu dhameystirayo maadaama dadku aanay wax badan u diyaarsanayn oo ay iska mishmishayaan oo dhismahooda iyo waxooda ay iska kolba wax yar ay iska bilaabanayaan ganacsatada kale qaarkood ayaan wali dhismayaashii ama qolalkii ay ku jiraan aan furin iyagoo ay waxyaabaha qaar ka yihiin qabyo oo waxa weeye markii suuqu gubtay 2022 bishii waxay ahayd abril baan filay inay ahayd 2022 marka waxay ahayd musiibo aad u weyn oo khasaare badan keentay walow aanay wax naf aanay ku dhiman oo ilaahay taas wax loogu xamdinaqa ay tahay laakiin haddana khasaare aad u badan oo maala ayaa inagaga burburay
hadda wanagan soo dhaqaaqnay dhanka iyo inshaarada wadooyinkana waxay ka mid yihiin wadooyinka u baahan inay dawladda hoose ay samayso wadooyinkii suuqa hoose walow ay jiraan ganacsato yaryar oo fara badan oo imika markii 8 ay soo gaadho meeshan waxay ka dhigayaan jam bay ka dhigayaan ciriiri bay ka dhigayaan imika meeshu waxyaabaha ay nafiska u tahay waa subaxa hore iyo sidoo kale maalmihii ciida oo ahayd daraatoore jimcihii ahayd ayaa laga nasanaya laakiin meelahan oo kale waxa ka mid ah meelaha u baahan in dib habeyn aad iyo aad lagu sameeyo walow inta badan ay dawladda hoose ay u degto haddana dadku ay ku soo noqnoqdaan waa hagaa khiyaarta qiimaha badan ka muuqaalkii la gareeya commentiga la wadaag sidaas nabadgelyo